shacabweynaha ku dhaqan magaalada Burco oo si weyn u soo dhaweeyay safarkii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tagay dalkaasi Guinea. Faahfaahinta warkaasina waxa inoo haya wariyaheena Maxamuud Damashaad. shacabweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay safarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu kaga soo laabtay dalka Guinea ee galbeedka Afrika. sidoo kale waxay aragtidooda ka dhigteen isla markaasina jawaab kulul ka bixiyeen hadal dhawaan ka soo yeedhay dawladda federaalka Soomaaliya. hambalyo waxaan leeyahay saaka aanu hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad ba madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku maqnaa safar shaqo waana libin iyo guli loo soo hoyatay leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland mar labaad iyo mar saddexaad waxa saaka farxad nagu filan hambalyeynaa madaxweynaha oo hawlo shaqo oo qurux badan oo ummaddu ku wada farxday inoo soo hooyay. halkan waxaan salaan diiran iyo hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi soo dhaweyntii loogu sameeyay dalka dibadiisa iyo markuu soo laabtay sidii loo soo dhaweeyay anagu waxaanu nahay reer Burco maana joogin halkan aanu idinka soo salaamayna hambalyo diiran kaaga soo diraynaa mudane madaxweyne waad mahadsan tahay sidaad u soo qabatay hawlgalkaad soo qabatay maxay ahayd soo laabadkaaga kaaga hambalyeynaa waxaan rajaynaynaa inaanad shaqada ka caajisin aad sidaa u wado maxay ahayd aad sii wado hawsha waxaan filaynaa inaad noogu imaan doonto gobolka Togdheer Burco insha Allah anaga Soomaaliland oo dhammaan hambalyo ugu diraya waxaan kaloo aan fariin u dirayaa dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay fariintaasi waxa weeye Soomaaliyadii dulowdee dawgii alla seejee dabinkii xisbiga iyo dalaqtii karkaarkee dusha suuga laba dhacaa tabxid lagaga dhigayo dow lagu nagaadiyo mar haddaana dawaba hayn doqonyow iskaga durug dalaldhiga farmaajana yaanu dabin inii dhigin dusma yaanu kuu qarin haddaad diiddo talada anigu dooda kamahi waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha Soomaaliland guushii uu ka soo gaadhay dibadda waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dadka soo dhaweeyay madaxweynaha iyaga qiimaha iyo qaayaha leh anigu jawaab yar waxaan siinayaa xamar waxaan leeyahay nagu dabalumina xamar ma siinayo laakiin waxaan siinayaa madaxweynaha xamar ayaan u jawaabayaa laakiin dadka Soomaaliya jooga waa dad walaaladaya waxba u sheegan mayno waxaana loo geysanayna way ka xun yihiin iyagaaba dhibaato ku haya marka ninka kaaraha saaran waxaan leeyahay iska raali ahaw waxaan halka ka salaamayaa TV-gan caalamiga ah ee Royal TV marka xigta halkan waxaan taageero buuxda aan halkan uga dirayaa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay guushaas uu naga keenay dalka Guinea Conakry aad baan safarka madaxweynuhu aad ugu balyaanaynaa hadana dhalinyarada gobolka Togdheer aad iyo aadna waan u garab taaganahay mar walba hadaan nahay shacbiga gobolka Togdheer. Maxamuud Axmed Aadan Maxamuud Damashaad wararka Royal TV magaalada Burco.